su-aashu waxa weeyaan haddaba waa maxay wasaa'ilka inugu xejin kara diinteenna sidaynu u xejin karnaa waxaynu u baahannahay inaynu in yar dib ugu noqonno tajribadii saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi moxamed بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة وسؤال قف كستا مسلم يسويدين كرو ودول كان جوغا سيدي بيو سورتي قليسا إنو ميشن نجوغو دينتي سنوي لاشدو قف كستا ودول وغريب كوية هيتاقا سترينجرا وحوبالين مشاكل تربضاني ونولاليت كهري منيان mashaakilku wuu sii adag yahay marka aad timaaddo ummad dhisan oo hadday tahay mabaadi'deedoo dhan haysata innagu waxaynu u nimi halkan inaynu su-aalo runtii isweydiinaba habboon ku saabsan waxaynu u nimi inaynu wax ku beddelanno mise waxaynu u nimi inaynu wax kororhsanno inaynu wax ku beddelannaa dee waa fududahay qofku hadduu rabo afkiisa dhaqankiisa diintiisa waxaba inuu dhiibo beddelkana wixii uu helayo uu qaato waa war la garto mid kalena waxa weeyaan waxaagiina inaad haysato waxna ku darsatid adigoo waxaagii haysta inaad wax kororhsatid bulshooyinka iyo qofka fardiga iyo mujtamaca haddii qofku waxa uu aaminsan yahay iyo culjarku wato iyo dhaqanka iyo afka iyo ka bulshadu iswaafaqsan yahay wuxuu dareemaa raynrayn iyo naxariis iyo deganaanshiyo mashaakilku way ka yaraadaan walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha qofkii ka soo dhex toosa ama kuwaa bariista fii sirbi ay fii mujtamaci fii ahli fii qowmi dadkiisa qofkii ku waabariista isagoo nabad qaba caafimaad qaba wuxuu cuno haystaa kaa adduunkao dhan baa ku soo ururay yacni qofkani wuxuu helay alamni nafsi walamni alcaqadi walamni asixi walamni alghadaa'i yacni wuxuu u baahnaa ee noloshu ay u baahnayd buu hayaa waxaana iswaafaqsan bulshadu u yimi ama bulshadu ka tirsan yahay waxay aaminsan tahay iyo wuxuu aaminsan yahay baa iswaafaqsan haddii qofku uu yimaado meel aanu dhaqanka afka culjarka diinta la wadaagin waxaa adkaata siduu isu adjust gareeyo waxaa adkaata wixiisiina siduu u haysto waxna u kororhsado waxaa fududaata inuu milmo dawabaan uu ku dhaco ou dadka ka mid noqda fudud marka ay dhacdo markaa in bulshadu waxay rumaysan tahay iyo waxa dhaqan u ah iyo nidaamkeedu iyo adigu wixii aad rumaysnayd ama diin u haysatay ama dhaqanku u ahaa iska hor yimaadaan waa markaa markuu qofku dareemo algurba
waa markuu strangenimada dareemo inuu stranger yahay waa markuu dareemo challenge inuu ka soo horjeedo waayo bulsho kastoo meel ku dhaqan waxa la yaqaanaa waxay ilaalisaa identity ay bulshadu leedahay waxaana ku ilaalisaa can طريق العلم والإعلام والقانون wasaaradda waxbarashadu waxay ilaalisaa bulshadan inay isku darto oo ay siiso identity bulshadu lahaa qofkan ku soo biiray inay siiso iclaamkuna waa sidoo kale media waxa uu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo iyo waa dhaqan iyo culture iyo hidde iyo af ay dadkan leeyihiin iyo taariikhdoodii intaa waxa dheer haddii ay intaasi ku anfici weydo systemkaad ku qasbantay nidaamka guud alqaanuun system baa ku qasbaya inaad systemka raacdo su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay meesha kaa gadisan sidee baad diin ugu dhexaysan kartaa marka aad meel kula nooca joogtid majhuudka ama effortka iyo kostkay kugu qaadanaysa inaad waxaaga haysataa waa wax fudud waayo bulshadaad la nooshoo dhan baa dhan u wada socotaa saa daraaddeed afkaa lumi maayo dhaqankaa lumi maayo diinkaa lumi maayo waxoogaa un adigu is-ilaaliso midhmidhka qaldan wixiisa inaad ka tagto ayuunbaad u baahan tahay laakiin systemka guud wixii aad rumaysnayd buu wadaa marka inaad diintaada ilaashato ilmahaaga ilaashatid dhaqankaaga ilaashatid awoodda aad ku bixinaysa iyo hantida aad ku bixinaysaa waa wax yar markaadse timaadid meel aad intiiba kaga gedisan tahay waxay u baahan tahay wakti ka badan iyo hanti ka badan iyo effort ka badan iyo caqli ka badan aad ku adeegsato si aad waxaagii hore u ilaashato u suurtoobi karto inaad waxna kororsato sideedabana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka dhulka ku nool intooda badan haddaad aqbasho yudiluuka can sabiili illah baa ilaahay tilmaamaya jidkay kaa luminayaan haddaba qofka halkan yimi waxaa la yidhaahdaa laba option ama laba doorasho qura laba khiyaaro keliyuu haystaa khiyaar waa inuu u diyaar garoobo sidii uu diintiisana u xejisan lahaa iyo wixiisa waxna u kororsan lahaa hadduu arkayo taasi inaanay suurtagal ahayn khiyaar labaad ma jiro ee waa inuu meeluu wixiisa ku haysan kara tagaa halkeebana tirada halkaa dhib baa ka jirte dunida gebigeeduba waa challenge intaad nooshahay waa alibtilaa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دوني واحد وشوكتان لغو يتحامو لكن هذا كوكو حرانتي مركا امتحان كان نوع تشالنج غرينيس تشالنج كات ربطين اتقاضته كان نوات قاضان كرتا تشالنج كات شوغا هذا تكبيحي كرتو هدي أنا كنا وودي كرين waa inaad qaadataa challenge-kaada walba ka soo carartay oo nabad iyo dhaqaaliya cunno ku saabsisanaa kaas sidii aad u manage garayn lahayd waa inaad waajahda laakiin meel ka dhaxaysa ma jirto labadaa wixii ka dhaxeeya waa dhimasho un maxaa loo baahan yahay markaa inaynu haysanno teeni ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa qisas tiro badan oo ku saabsan bulshooyin dunidan soo maray iyo siday u noolaayeen bulshooyinkaa ilaahay ka warramaya qur-aanka kusoo qisaskooda ku soo naqliyey qaar gaala ah iyo qaar muslimaba way lahaayeen ummadaha ugu tirada badan leh qur-aanku uu ka warramo waxaa ka mid a dadka yahuudda la yidhaahdo yahuudi waa bulsho taariikh dheer leh waa dad xun iyo dad wanaagsan ba lahaa dad wanaagsan oo badan bay lahaayeen saa qur-aanku ka warramayo bale ambiye badan bay lahaayeen nebiyo nebi yacquub nebi yuusuf nebi sulaymaan nebi huud
nebi muuse ambiyadaa qur-aanka warramaya o dhammi de waa faamiliga waa bulshadaasi ka tirsanaya dad wanaagsan way lahaayeen a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun wajacalnaa minhum a'imma ilaahay wuxuu leeya iyaga waxaanu ka yeelay a'immo aayaadka yaga a'immo sabray oo aayaadkaaga yaqiinsaday oo dadka qudwa u noqday tusaale dhanka kalena kuwa xun bay lahaayeen ilaahay markaa qur-aanka wuxuu inooga warramayaa bulshada reer banu israa'iil ay dhaho qayb mar ka mida taariikhdoodii ilahay wuxuu uhi waqatacnaahum fi lardi umama waanu googoyno dhulkaanu ku saydhinay baa ilahay yidhi qatacnaahum fi lardi umaman minhum الصaalixuun ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون dad wanaagsanna way lahaayeen baa ilaahay yidhi dad xunna way lahaayeen waana la googooyey waa itixaamay baa ilaahay leeyo xasanaad iyo sayi'aadba wanaag iyo xumooy samaba waa lagu itixaamay lacallahum yarjicuun maxaa xaalkoodii noqday markaa waxaa qisaskaa laynoogaga warramayaa inaynan qaar ka midi ficladay sameeyeen inaynan samaynin ilaahay wuxuu leeyahy markaa fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaab kuwaa waxaa gadaal maray koox kitaabka dhaxashay baa ilaah yidhi warithuu alkitaaba kitaabka way dhaxleen ya'khuduuna carada hada aladna waxay qaadanayaan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala noloshan gaaban wixii ka soo gaadha waa iska qaadanayaan xalaal iyo xaaraan iyagoo aan u eegin oo wayaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lana waa naloo dembi dhaafi doonaa wain yaatihim caradun mithluh mar labaad haddii kioo kale ku soo baxana ya'khuduuh baa ilahay yidhi waa qaadanayaan ilahay qoladan wuxuu ku tilmaamaya dhowr sifo kow kitaabka way dhaxleen bini aadamku wuxuu dhididkiisa iyo xooggiisa ku baxsado iyo wuxuu dhaxla ku helaa agtiisa way ku kala fudud yihiin bini aadamku haddii uu maalan ilmaha yar haddii xoolo looga dhinto inta badan waxaa dhacda inay maxay ku cayaaraan waayo umay dhididin iyagu laakiin qofku xoolaha uu shaqaystee ku dhidida ee xoog iyo naftiisa ku bixiyo wuu la jeclaabayo way adagtahay inay ka baxdo noloshoo dhan baa sidaasiya diinta dadka u dhintay ee naf iyo maalba soo siistay ee waxay u hijrooday saxaabadii nebiga iyo dadkani waa noloshooda dhan bay siisteen saawgeed way ku adkaayeen laakiin dadka dhaxalka u helay sidii noo kale meelun baynu iskaga dhalanay dad muslimiini joogaan islaamkun baynu aabbayaasha iyo awowyadeen allahu naxariistee ka dhaxallay wax kasta oo inagu joogay ma jirin adnaa majhuud maynan gelinin qoladan waxaa lagu tilmaamay iyaguna inay kutubka dhaxleen dhaxal bay ku heleen warithul kitaab laakiin dhaqankoodii maxaa ilaahay ku tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi waxay doonaan inta iska sameeyaanba waxay leeyihin ilaahay waa ghafuur raxiim sayufaru lana waa noo dambi dhaafi doonaa bini aadamku waa dhacdaa inuu gafo ilaahayna waa ghafuur raxiim hadduu ka soo noqdo toobad keeno jidka saxa qaada ilaahay dambigiisa ugu dhaafaa laakiin qoladani caadadoodu waa maxay waa iska dhumbanayaan marka la dhaha war waa sideena insha allah ilaahay baa noo dambi dhaafa bay leeyihiin ilaahay baa noo dambi dhaafi ma berrita hadday tiitimaadana waa la wadayaa that means dembiga waa la wadayaa rajada iyo amalka ah ilaahay baa dembiga dhaafi doonana waa la hayaabaa ilaahay leeyihi qoladan ilaahay wuxuu ku yidhi alam yu'khad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun war kuwan miyaan ilaahay ballan ka qaadin baa alla leeyahy subxaana wa tacaala inaanay ilaahay been ka sheegin oo kitaabkan inay daraaseeyaan iyo waxa ku jira war daarta aakhira u faa'iido badan baa ilaahay leeyahy u khayr badan dadkii ilaahay ka cabsoonaya war miyaanay caqli lahayn baa ilaahay yidhi afalaa tacqiluun miyaan garashadu shaqaynayn baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan gruub kuwaasaa lagu tilmaamay inay noqdeen qaar kalena waxaa la tilmaamaya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا كتابك قبصة با إلهي لي مسك وبتضعيف يبا الاستعمال الوضع عربيد يعني واحد قبقبان يسو هاد حجين يسو
مسك وقبت لكن مسك والذين يمسكون بالكتاب إليه كوا كتابك قبصنية حجينية وأقاموا الصلاة صلاة أوغية إنا لا نضيع أجر المصلحين بإليه مالو من النبي إلهي ليه كوا السماح السبين أجر كوا ظلم مايو إذن قصة إلهي وحين أقول شيء غير هرب إسرائيل لقوقويي سيدا إنه كلا فردني لو كلا فرديي إن إداد صالح إداد حنبا لهايين وهلا شغال امتحان هذا وصومري بلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون لكن وحلا tilmaamay groupkaasi group inuu ka dambeeyay iyagu intay wax walba iska dhumbadaan diintoodii aan xijisanin ee amalka in loo dambi dhaafi doono uu iska haysta waxay doonaan sameeyaan iyo koox kale ah kuwa kitaabkoodii intay qabsadeen xijistay oo salaadoodii oogay oo ilaahay leeyahay kuwa wanaagsan ajirkooda lumin mayno idan waa labada wado qofka gariibka hamid uu ku biiraya bulsho ka badan markaad adigoo yar la joogto labada wado mid umaad qaadaysa su'aashu waxa weeyaan hadaba waa maxay wasaa'ilka inuu xijin kara diinteena sidee inuu xijin karnaa waxaan u baahanahay inaynu in yar dib ugu noqono tajribadii saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nabiyullaahi maxamed wadcigeenu ku loon lahayn mid ka adag bay ku noolaayeen mid ka adag nabi maxamed soo keligiya la soo diray calayhi salaatu wasalaam qof iyo laba iyo saddex baa rumeeyey dhul gaaleedna way deganaayeen meeshay deganaayeen markii waa dhul gaaleed madiinana waa dhul gaaleed marka gaalaa degan culture kala yaala luqadooda isku mid bay ahayd laakiin caqiida iyo dhaqan ka gadisan kii jaahiliga bay haysteen sidee bay u dhacday inay saxaabada iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam ka hortagaan oo ay diintoodii u xejistaan waxaan rabaa inaan in yar tilmaamno afartii suuradood ee quraanka ugu soo hordegay quraanka culimadu waxay isku waafaqsan afar suuradood baa ugu soo hordegay ay inta badan tilmaamaan waliba afarta suuradood wada dhan maaha mid walba qaybteeda hore وسورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة داس قيب طاهر وحكالو ينسو دكتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات كاسي هرير وحكالو سو دكتي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلى آيات كسيحية وحكالو سو دكي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا آياتك waxay culimadu yiraahdaan waxyigii koowaad ee nabi maxamed ku soo degay calayhi salaatu wasalaam waxa godka markuu ku jiray laakiin maadaama uu nolol adag waajihi doono waxay yiraahdaan qaabka wax la isugu bara tacliimka si qabow baa qofka wax loo baraa laakiin nabi maxamed markii lagu bilaabayay qaab adag baa loogu bilaabay malakul jibriil baa intuu qabto gilgilay ayuu iqra ku yiri waxay culimadu yiraahdaan waxa la taabsiinayay qimmatul intibaahi was-sahwa waxa soo socda wax fudud inaanu ahayn inuu xoog u soo jeesto dabeetana quraanka ma ku soo degay quraankani muxuu ka warramayaa waxay yiraahdaan aayadkani waxay sheegayaan haddii lagu dhaqmo waa waxa sababi kara inay cidi mabaadi'deeda haysato ku dhaganaato diinta inaad xejisato aayadkani dhowr shay bay ka warramayaan midi waxa weeyaan kow waxay ka warramayaan qadiyat al-ilm iyadoo laga yaabo carab inay jahli ku sugnayd aqoon inaan waxba ka jirin oo ay noloshoodu cayn ka ahayd
cilmiguna inaanu qiimo badan agtooda ku lahayn laakiin wixii qur-aanka ugu soo hordegay masalada qalamka masalada kitaabada iyo akhriska iyo cilmiga iyo ku saabsan buu ahaa laba suuradood markaa nuun walqalami wamaa yasturuun waxaa lagaga warramayaa qalinka iyo waxa la qoro اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قضية العلم والقلم والسطور بالغ والرمى هاي علماء يدادن كو الجاهل وحبيس كما دفاعي كره ديل الرباط دين تنين نحيش سنو وين نبرنا قضية العلم في نادم كوحك كواده وسكد دافعه ومسألة العلم waxaanad cilmi u lahayn ma difaaci kartid waxaanad garanaynin ma difaaci kartid waxaanad garanaynin shubahaadka kugu badanaya waa lagu shaki gelinaya waxaanad garanaynin asilada dadka kama jawaabi kartid waxaanad garanaynin ma garan kartid maxaad u haysataa idan ula shay ama shayga ugu horeeya aynu u baahanay haddii aynu rabno inaynu diintan haysanaa waa inaynu garannaa waa inaynu barannaa waa inaynu aqoon u yeelannaa caqiidadeeda iyo waxay sheegayso waa inaynu garannaa reasoninkeeda iyo common sensekeeda iyo waxa ka dambeeya waa inaynu garannaa waa inay caqligeennu wuxuu qaadan kara noqotaa waa inuu si fiican u fahmno kaasi waa mid ka labaad ee aayaadkani ka warramayaan waxa weeyaan waxay yidhahdaan khayru difaac khayru wasiila lidifaac huwa alhujuum bay yidhahdaan wasiilada ugu fiican ee difaac loo gala waa inaad hujuum ama diyaar u tahay inaad wax iska dhicin kartid haddii adigu un lagu yeedho mabaadida kalun lagugu wado waad lumaysaa laakiin ilaahay muxuu nabi maxamed ku yidhi yaa ayuha almudathiru qum faandir kan isdadayow baa la yidhi kac oo dig waxaa ka horreysay oo soo degtay binu iqra iyo riyooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam 6 bilood ku soconayay haddana waxaa lagu bilaabay inuu kaco oo digo idan inaynu dacwo samaynaa inaynu dadka kale diinta ugu yeedhnaa waa waxa keensanaya teenna inaynu xijin karno waxaa lagu yidhi markaa qum faandir warabbaka fakabir rabbigaana weynee وثيابك فطهر مريها هي قلوب تادية كوري هوسبا استاهر ريال والرجس فهجر حمها كجور كهجرود ولا تمنن تستكثر إخلاص لك عليه واحد بحين يسها من نشيغا وحلو يري مركا ولربك فاصبر وضضا إن أتقادانا مشاكل هي تشالنج عصب ويان إيادنا الصبر بالليل waxaan leenahay qadiyada koowaad waa qadiyada cilmi haddaynu rabno inaynu diintan ku sugnaano xijinno waa inaynu barannaa garannaa si fiican u fahmnaa waa yeel iyo wiil yarba keeda labaadna waa maxay waa inaynu iyada u shaqaynaa dadka gaadhsiinaa innaguna isgaadhsiinaa oo ah inaynu isku tahirno kor iyo hoosba xumahana ka hijroonno ka guurro waxaasina waa inay naga hadaan ilaahay dartii iyo ikhlaas challenge ka inagu hor iman doonana waa inaynu u sabirnaa kaasaa la fara bini aadamku hadduu shay culus qaado wuu daalaa hadduu challenge-ku ku adkaado wuu isdhiibaa laakiin qofka muslimkaa lama rabo inuu isdhiibo muxuu samaynayaa waa xidhiidhkaad ilaahay la leedahay adkee baa lagu yidhi haddaad rabto inaad ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisana hesho hadday dhibo ku qabsato maxaad ka fekertaa qofka bini aadamka markay dhibo qabsato maalan economical problem baa ku qabsaday dhaqaale dhib dhaqaale markiiba waxaad fekeraysaa wartalow xaggaad ula kacdaa waxaa kugu soo xaadiraya ciddii qaraaba iyo tolya asxaaba ahaydeen ee waxhaysataad isleeday waxbay kaa tari karaysaabaa markaaba madaxaaga ku soo xaadiraya marka waxaad markiiba tijaabinaysaa bal intaasi culayska inay kaa qaado inaad connection la samayso xidhiidh inaad kuwaa la samayso ilaahay wuxuu leeyahay haddii diintan culays aad dareentaan aniga xidhiidha la sameeya saa daraaddeed baa nebi maxamed waxaa lagu yidhi iyo saxaabadii yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا habeenkii kac baa la yidhi nuskii ama intiisa badan ama in yar nuska ka yare habeenkii kac ilaahay xidhiidhkaad la leeday xooji waayo innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilaha yidhi war culus baan kuu dhiibayaa baa ilaha yidhi diinkan inaad xambaartaa waa culays baa ilaahay leeyahy haddaba culayskaasi si u fududaado ilaahay kaalmayso ilaahay cibaadadiisa iyo ku-xidhnaantiisa iyo baryadiisa kaa kaalmaysa baa ilaahay leeyahy ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطan wa aqwamu qiila maalin oo dhanna waina laka fi nahaari sabxan طawiila tasbiixso oo dikrigaaga badi watabatal ilaahi tabtiila waka suuradoo dhamme markaa waxay tilmaamaysaa qaybtan aynu tilmaamaynaa haddaad aqoon diintiina u yeelataan oo ku qanacdaan isla markaana aad dacwa samaysaan oo dadka ugu yeedhaan idinkuna ay isdaahirisaan sabir baa laydinka baahan yahay haddii challenge-ku xoogoobo mar kasta ilaahay ku xidhnow baa la yidhi